بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله وكفى بالله وكيلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ناقاون بقى ولا عليها سوق بركن مكو فريستا مسان قامنا أوكي واي سوق بل ولا لو معانو هيسو عنينه ناقاونا هاي كورنا سوق هذا ربا. بسم الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توكلت على الله وكفى بالله وكيلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. I hope codkayga fasiix inaa u maqashaan. Axmed walaalkay macaan waan ku salaamay. yaa kaloo i salaamay iisu maxamed waan ku salaamay. cabdirasaaq waan ku salaamay. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. dadka youtube-kayga gadaal iga daawan doona waa idin salaamay. jarman baan joogaa. islaamaha youtube-kayga daawada I miss you. ayaanta youtube ma soo galin, mashquul baan noqday. jarmanka 3 bari baan joogaa. Today is my off day. shalay waa iska daba wareegay. maanta is my off day. ما فهمتي. صباح وناكسن صباح هدي كوتهي. هبين وناكسن هبين هدي كوتهي. ظهر وناكسن سوق حير إياها عدكيغا ماشي قدام بيوتشوغا هاي فصيحة الله مخلص في علي واكو السلام. مريم واكو السلام. عدكيغا فصيحة ومقشين. هذه بنت سومالية. هذه ميلو سودو وإذن سلامية بقول إتبني أفرتي قرآن كان يكون سلامية. جرم بانكو سوغنا هاي وان في عنا هاي وان عاف ما قبا إن الحمد لله الشكر لله. دل كان جرمان كأهو يبقى يسلع بايلا لكن ولا قبا حياة dadka Soomaaliyeedna way dhiban yihiin meel bay adduunka ka wada joogaan. aadi u dhiban yihiin. ilaahay dhibka ka wada qaado. in gabadhii dhimatay Allah u naxariisto. aamina Allah u naxariisto iyadii intii ku geeriyootay qaraxii. aamina waxay ahayd halyeel qaran ah. maalin walba u duceynaya. maalinba magaceeda waan sheegaya. waxay ahayd diamond. dadka lama waxay dhahaan dadka lama taabtaanka iyo lama fiiriyaanka waa aamina amal bay ahayd. laakiin aamino ilaahay ha ku naxariisto. waxaad ka dhalatay dal ma dhihi karo. dadka wada xun yihiin ma dhihi karo. dal liidarkiisa cadaray waan ku salaamay xabiibtii. aamino ilaahay qabriga waa saxa kaaga dhaga walaashay macaan. waan ka xumahay. waxaa ka dhalatay dal dadkiisa ay yihiin corruption, very corrupted ah. adiga iyo kuwa adiga camal ah maalin walba inaan aamusno oo aan dhahno Allah u naxariisto waayaan dara. ismaaciil waa ku salaamay. marka wax kale aan dhaha ma aqaan. 1 second ii suga yaha. wax kale aan dhaha ma aqaan. sabri iimaan Allah naga siiya. laakiin I hope حبيبتي لايف بان كجرا معانتي لايف بان كجرا لايف فيسبوك igala socotaa. halka igala soco sooca marka ka soo baxo. assalaamu calaykum. siga marka telefoonkan ana ka baxaa ee qadka insan lay wareerinin in maxaa la dhahaa kana chargerka aan geliya. marka wax kale oo dhaha ma aqaano. waxaan rabaa inaan u mahad celiya gabdhihii xalay Faaduma iyo labadii gabdhood kala aad u mahadsan yihiin. in maxaa la dhahaa ii sheeg garab. oh my goodness, you're ringing all this racks. hooga internetka haddaa xiray kii kalena inaa xiraa u malaynaya. balaayaa ka dhacweysa. waa idin salaamay. Milano waan ku salaamay. gabdhihii xalay qurquruxda badnaa ila joogay maasha Allah tabaarakallah. waa la idin soo calmaday. waa la soo calmaday. ahay waa la qasaar ala meesha rag ma joogo. astaghfir rag lama waa wada qaar baa jooga. walaal naga daayay bahash. hadda waa kaas wiilasha saa isoo wada wacay. inna lillah. bismillaahir rahmaanir rahiim. life baan ku jira walaal ma ku soo wacaa.
هاي ولا السلام عليكم وحر إيسوغا تيشو وساقب سنة عاقاس بيها أنا أسكال عاقاس وين بيها أنا أسكال الله يا إيسو قاضو وإذن سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقول من أفرتي قرآن كان يكون سلامي برنامج كأصول أنفك السارية برنامج كقبنا كدب قدارك شكل سنين الصومالي محمدين أوكي دقيشت ميشان برنامج كوحي كوساب صنت وحي كوسعدا علماء الصوماليات علماء الدين الصوماليات بوكو سعدا marka haddaa diintana dhaantid barnaamijka si fiican u dhageysa jawaabtana ii soo diro bismillaah assalaamu calaykum habar yaro habar life baa ahaa codka kuu shida sugiyaa Okay. 39% ku jira bismillaah assalaamu calaykum habar yaro وعليكم السلام هبو. I hope codkaaga in fasiix loo maqla waxir ii sukorto waxaan soo dhaweysanaa Okay, عدك يقوم بشام معن. ha habar ii sug marka codkaaga in la maqla ayaan filayaa Soomaaliya codkaaga cadaray mana la maqlaa Soomaaliga bajeera iga galay waa lagu maqlaa aan filayaa hadal bal هبو waxay ugu dhacday inaan baan la sheekaysan jiray. habar ii sug horta habar yar okay hadda lagu maqlaa hadda hadli kartaa waxaa tiraahday inanba meeqaas inanka intee joogteen meeqaasana jirta inanka marka la sheekaysan jirtay Waxaan jiray saddex wallahi baa waxaan garanayaa taariikhda 2013 okay adigu hadda meeqaasana jirtaa imka waxa hay 13 jir. okay waxaa ka soo wareegtay okay 10 sano la 16 sano jirta haye Si fiican. haye Inaan la sheekaysan jiray ka bacdi inankii waxaan u qaaday uur habo. inan baa la sheeg intee joogteen markii ii sheeg oo aan la sheekaysanaysi intee ku sugneedeen Soomaaliya joogtay Soomaaliya ka intee Somaliland baan joogay habo. Somaliland baa joogtay ma sha Allah Okay. haye oo hadli karaa ha hore u socdo ku dhageysanooya haye Somaliland baan joogay ka bacdi uur u qaaday ka bacdi uurka igu soo baxay. okay ninkii waa sheekaysateen idinkoo ismehersanin ayaa uur kugu soo baxay haye maxaa samaysay marka Ka bacdi dimaashiyan u sheegay dimaashiyan marka uu sheegay waa naxay uurka igu soo baxay inanka loo asxaab mahay waana ilmaha iga dhalin baa yiri kana iga dhalay waqtiga habo waa naxay waana yara ninkii ku dhalay ma ihina nin kale oo ka saartay dusha ha nin kale dusha ka saaray aan digin kana iga dhalay haye ka bacdi isagii baa la hadlay waxa ku uura igu soo baxay inankan aan dusha ka saaray waa la meheriyay inkana waan kala tegi doonaa markuu ayaan ku yiri sug habar waxir iis waxaan rabaa inaan fahmo waxir iisug okay reerkii ninka Hashim al-Aswad baan block saara sug meeshan uma baahna qosol dhaqdhaq waxbaan rabaa inaan fahmo ninba la sheekaysan jirtay uura kugu soo baxay nin kala dusha ka saarto waxaa tiraahday ninkaas ayaa cunug iga dhal ninkii baa lagugu meheriyay ha habo inankii baa lagu meheriyay haye ka bacdi inankii marka lagu beheriyay inankii ilmuhu dhalin ma qaadanay ka bacdi waan iskhilaafay ka bacdi waa kala tagay inankii kale meeqaasana isqabtay yarkan kale lagugu meheriyay hal sano kaliya intan ka dhalay markuu uurku kugu soo baxay waxaa tiraahday ninka okay wiilka adiga aad dusha ka saartay oo aad tiraahday maxaa la dhahaa wuu uureeyay muusan dhihin miya aniga ma uureynin maxaa la dhahaa ii sheeg anigu qofta ma arkin soo wada sheekaysan jirteen asna ha wuu yiri isla guur marka duciya habaar qaado ha sidii inankii ugu yeelay haye
sidii baa laygu meheriyey kabacdi markii dambe habo aan dhalay ayaan kala tegnay inankii sidii buu igu furay kabacdi wiilkii baan la hadlay kale okay habar qofbaa wuxuu ii soo qorayaa naag uur la meher ma qabanayo ma garan kara habo waqtiga waa lii meheriyey haye kabacdi sidii baa ilmaha ku dhalay kabacdi inankiiba sidii baan ku kala tegnay kale haye kabacdi markii dambe aan dhalay inankii ilmaha iga dhalay dhabtaan la hadlay okay su-aal baan ku weydiinaa marka halkaa ii istaag sababta aad ninka ilmaha kaa dhalay aad u diiday inaad sheegto ma kaa awood badnaay ma dadka iisheeg laga awood badan yahay somaliland looga awood badan yahay maa tahay ilaan soomaaliya qabiil baa ka jira 4.5 aa lagu wada fadhiya aniga kama dhigin muuse biixi kursigiisa qabiiluu ku fadhiya ninka baarlamaanka somaliland qabiil bay ku fadhidaa naagta xildhibaanada qabiil bay ku fadhida anigu kama dhigin marka ma ninkan meeshuu kaaga awood badnaay maxaa la dhahaa ii sheeg ma qabiil ahaanuu kaaga awood badnaay ma maal ahaan hanti ahaanuu kaaga awood badnaay sababta u qoraysa waa maxay habo waan ka cabsoonayaa isaga ilaahay waranta jecel soomaha aniga waan ka cabsoonayaa ilaa imika hadda dal igu dhaha qabiilkiisa sheeg waxaa wada ilaa imikada inaan sheego marka habar markaa ka baqanaysa ma waxaa ugu baqanaysaa inuu ku dilo inuu gacan kuu qaado ma kuu hanjabay kawaan kaasiina muu ku dhahay ha laga yaabaa xitaa inuu fuliyo iga hayaba habo marka aan kala saarna habar ma waxaad ka baqanaysaa video qaawan buu kaa haya uu bannaankuu soo dhiga ma ugu baqanaysaa mise cabsi kalaa jirto oo alada ninkaa meesha waa igaga awood badan yahay waa igaga qabiil badan yahay waa igaga hanti badan yahay waxay fahansiin habo inuu fuliyo iga hayaa wuu ii hanjaba marka xaafadeyda ma awoodo waan ka soo cararay xitaa xaafadeyda uma sheegin waan ka soo baxay waan iskaga tegay xaafadii Ethiopian jooga sug habar harta ha ii dambays meeshaa joogtida Ethiopia inaad joogtida okay ninkan reasonka ama reason of Soomaali waxa lagu dhahaa ma aqaano sababta aad u qarisay aad reerkaaga ugu sheegi weysay ilaa haddana uga cabsanaysid video qaawan buu kaa hayaa waxaa leedahay ama bare bulsho lagu soo dhigaa wax kale ma aha ha okay wadana ninka ku jirto ka weyn inuu igu dhigaan dhici karta habo okay cunugaaga dhashay cunugaaga meeqa sano maanta jiraa 12 sano jira 12 jir cunuga haysata aabihiisna ma oga inuu aabihii saxda yahay ha moogo intii gubisa waa weynta okay dib aan u laabana markii aad ninka ka furay ninka aad cunuga maxaa la dhahaa dusha aa ka saartay uu ku furay maxaa dhacay maxaa dhacay anaa ku ka cabsaday inuu ifuro maadaama uu ilmuhu isagu uu dhalin ana codsiga dhiibtay inuu ifuro okay wiilka kale ilmaha dusha ka saartay uu ku furay marka maxaa samaysay bas markii uu furay kabacdi waa ka soo tagay wadankii waa iskaga yimid isagana waa awoodi kari waayo midaan ku lahaa walaal awoodtaas aan sasay haysata ilmahana dhalinba dusha ka saartay taana waan ku oran kari waayey waa iskaga tagay marka kii kalena iyo caafimaadaan dhihin oo aad cunuga dusha ka saartay ha ma ku dhihin okay maxaa la dhahaa ii sheeg marka waxaan ku weydiinayaa waxa waaye inta hadda aniga ii sheegaysa in ka badan oo qarsoon ma jiro ma yahabo okay waxaan ku weydiiyey marka hadda intee ku sugan tahay Ethiopian ku suganahay habo Ethiopia ha adigu Soomaaliya ka tahay jibraba koranka bis inta inaan si dhaafiyo barabo no habar dhigayso isaaqata isaaqya ka tahay inaan fahmaa raba anigu isaaqa waa jibraba koranka hay bis may habar wax baa ka dhaxay waxa qabiilkaas u dhaxay Jibril Abuukar isaaqa ma soconaysa cid baa u dhaxaysa cid anigu waan fahmay waan garanaya umada u sheeg haba isaaqa jibraba koranka si ahay inaan hoos u sii dhaadhaco waa ma awoodi kara haba macaan sabab Soomaaliinta san ka codsan
sabab sababta ma rabo habo okay xitaa isaga qabiilkiisa inaan sheego ma rabo ana qabiilkiisa waa bas sheega anigu hadda runta kuu sheega waa ninka waxaa igu tiri waa samaroon maaho waa samaroon maaha reer nuur weeye reer nuur yaa la dhahaa samaroon reer nuur buu ka yahay miyaa ha wuu isku jiraa magacaabise laakiin reer nuur baa la dhaha oo reer guuleeda intaas bes weliba reer nuur oo reer guuleeda kasii sheegay bes inta ma awooda in kale ina kusii daro haba macaan waa mahadsantahay bilaa soo qoray waan fahansanahay anigu laakiin iidaan rabay inaan ka xaqiiqsada marka ninka maanta intuu joogaa somaliland buu joogaa habo nambarkiisa ma haysaa may xitaa mobile ma isticmaalo oo mobileka qofaan kasoo qaatay habo ani mobile xitaa waa kasoo cararay marka adigu markaa soo carartay cunugaaga maanta ma wadataa makula sheego cunugaaga 8 sano jira maxaa wataa habar yar ii dhegayso si fiican ii dhegayso waa ku dareemaa waa baqanaysaa cajaladuu ninkan kaa hayaa horta ani mid baan kaa ballan qaadayaa mii maqashaa si fiican ninkan hadduu somaliland joogo mise meel kale somaliland maanta ninkan hadduu joogo waxaan kaa ballan qaadayaa cajal adiga aa leedahay in uusan meel soo dhigi karin anigu taa ka ballan qaadaya sax ma fahantay sax maxaa la dhahaa ii sheeg cajal adiga aa leedahay ama adigu ha kaa duuba ma adoo raalli ha lagaa duuba ma adoo raalli ahna lagaa duuba marka maxaa la dhahaa ii sheeg maxaa la dhahaa dadka qoraalkooda ma akrin kara please waxbaa iisoo qorina maxaa la dhahaa ii sheeg ma samayn karo bara bulsho ma soo gelin kara taa ku seexa kuna soo tooso habarya ninkan cabsi buu kugu abuuray wuu kaa bajiyaa saa u fahmay maxaa la dhahaa ii sheeg ninkan ma la hadashaa ma la sheekaysataa may hadda telefon baa xitaa ma isticmaalo telefoon dhan telefoonka hadda iga soo wacayso qof jiiraankaaga iskale waa ii sheegtay maxaa la dhahaa ii sheeg marka cabsida adi aa ka baqanaysa waxaa waaye beenta aa sheegtay oo reerkaaga aad u sheegtay iyo ninkii aad maxaa la dhahaa ii sheeg asna aad beenta ka sheegtay iyo kii oo aa ka baqanaysa waxaa waaye very very complicated case waa casekan waa qof baqanaya waa qof dulmi galay waa qof ilaahay dulmi ka galay waa qof bilo aadan dulmi ka galay iyadii baa la dulminayaa habar yar waxaad ii sheegtay marar badan inaa isku dayda inaa isdishid tira balo wallaahi haba macaan haddii tayda noqon lahayd waan dhiman lahaa bise laakiin tayda may noqon marka meeqaa jeer oo isku dashaa isdishay inaa isdishid wallaahi 5 jeer kininka caalka qof garanaya hadduu jiro caalka ka ariga la siiya xitaa wallahi waa cunayabo si nafta iga baxdo caalka riyaa markay xanuustaan kala siiya xitaa haba waan cuna qofkii garanaya garan caal kininka la yidhaa riyuga la siiya amba ariga la siiya kaniinkaas maa cunta inaad dhimatid le noloshada aa ka tagtid haye maxaa kaloo cuntay miskiin xitaa dawo waa cuna isticmaalay dawooyinka sunta oo dhan xitaa gaas waa cabay xitaa dhib waa cabay tayda way noqon weyday okay habar su gaaska markaa cabtay oo wax walba aa cabtay maxaa dareentay ma suuxday ma xanuunsatay waan suuxay dhuuntoo dhan ay olashay xitaa arabka xitaa dhuuntoo dhan ay olashay gaaska maalinka dhana kooma ku jira habar yar habo waa ku fahansanahay dadka soomaaliyeed aan ka dhalanin hadda alxamdulilah alshukurilah 2022 gaa la marayaa
wax walba way habar faham dad fiican way iskugu jiraan dad xun way iskugu jiraan dhammaantood waxaan ka codsanaya dhammaantood inay ii soo duceeyaan waa laguu soo duceynayaa insha allah biidni illaahi kariim ummadda soomaaliyeed way kusoo duceynaysaa balse habar yar ma raadisay culamaa uddiin ah qof sheekh ah arrintan ma u sheegtay ma tiraahday maxaa la dhahaa ii sheeg dhibaatadaana ay haysato maxay diinta igu xukumaysaa maxaan ilan adigu duruuf baa kuu geysay ninka inaad qarisid walba markaa qarinaysa xitaa waxaa laga yaabaa inuu ku dhinayaa cajaladahan baan ka ahayaa si fiican weli culamaa la xidhiidhi ma jirto abo cid xitaa aan u sheegay arrinteyda ma jirto oo qofkii iigu horreeyaa u sheego allahu akbar allahu akbar habar waxaan ku weydiiyey kaniinka ariga lagu daweeya see ku heshay markaa cunayse waa soo iibsaday kininka caalaa la yidhaha waa soo iibsaday waa kininka waaweyn maxaa samaysay marka okay habar markaa fiiri markaa isdili rabtid oo qofka inuu nafta iska qaada aa rabtid maxaa samaynaysaa ma duceysatay ma ilaahay baa bariday maxaa la dhahaa ii sheeg qofka dadka isdila qofba si waayo qof wuxuu rabaa inuu preparation waxaa la dhahaa maxaa la dhahaa isdiyaarin buu sameeyaa warqad buu qoraa reasonku u dhintay wuxuu u dhintay qaarna waaba isdaldalaan wayba tagaanba marka adigu maxaa samaysay habar wallaahi waraaqna ma qorin base laakiin waa isku daya inay isdilo taana way ii suurtageli weyday minallahi allah way ka suurtageli weyday alxamdulilah base laakiin ilaahay baa mahadaada i badbaadiyey igu simay cibaadadiisa hadda waan toobad keenay waan tukadaa shantayda waqti base laakiin qalbigayga waxaa ka buuxa culaystaa id badan qalbigan ka olanaya cidi dareenta ifaada xitaa ma jirto midaydan waa midda qalbiga ka ololaya ka gubanayo okay anaa ilan iga timaade sorry habaryar macaan maxaa la dhahaa ii sheeg waxaan ku weydiinayaa marka aad baxaysid oo aad sumanka soo iibsanaysid oo waxaan aad soo iibsanaysid oo waxaan kala duwan yaa guriga kula jooga marka wiilkaaga ma kula jooga cunugaaga xaafad jaarkaan geeya markaas saasoo kale aan samaynayo jaarkaa u geysaa suuqa aadaa ha marka ma ku fikirta wiilkan inay hooyo la-aan ku dhacayso inaa adigu dambi gelaysid inaa adigu waxaan ay mamnuuc ka tahay badiiniya diinta islaamka ah habar xanuunka haysta waan ku fikiray hadda ma sameyn base laakiin waqtiga xanuunka iga tanbadta ilaa alaka xanuunka iga tan badan habar ninkaas haddii adigu taada lagu raaco maanta dad badan oo mas-uuliyiin oo somaliland baa i daawanaya dad badan oo reer somaliland oo damiir leh oo kusoo raadin doono oo kula damqaday ee dhibaatadaanayto ninka ku gaarsiiyo asla maanta ku raaxaysanaya somaliland adigana ahoog iyo ba iyo ethiopia banaankeeda iyo baadiye aa joogtid duur cidlo aa joogtid adii cunugaaga oo aad ii sheegto wax aadan cunto aadan haysanin waxaad ilma siisad ma haysatid adigu raashiin ma haysatid gurhoy ma haysataa duurka baadiyaha ah cid aad la joogtaa oo aad waxaad igu tira dharka u dhaqaa ariga u raacaa si fiican marka diyaar ma u tahay ummadda soomaaliyeed dad wanaagsan baa ku jira in lagu soo wado oo nooligaaga lagaa soo bixiyo oo maxaa lagu dhahaa lagu keena somaliland oo cadaalada lagu ninkaa la marsiiyo ilan adiguna dambiga adiga aa gashay waa adigii ilaahay laakiin ninkan intuu dhibkaan dhanna maadan samayn lahayn dalkaaga somaliland maadan ka caran lahayn reerkaaga maadan ka caran lahayn been maadan sheegi lahayn oo ma dhihila ninkaanayta cunuga asaga kanaa iga dhalay oo wax aad isku tihiin guriga kuu joogay maadan waxaas oo dhanna ninkaasaa sabab u ah marka diyaar ma u tahay in lagu soo wado lagu garab istaago habar diyaar waa u ahay in la garab istaago si laakiin buugiisa in isaga lagu furo ma rabo
habar yar rabo buuggiisa guriga in la furo waa ku qasbannaho waxay ku wax sababaad u rabin buuggiisa in lagugu furo habar moogta intuu dhaa waxaan mas waan samaynaya waan dibad gelinaya oo hadhow tolaalka ka bilaabaya habar dee adigu ku arka dee meel cidluu kaa helay ninkan ma fahantay si fiican ninkan reer masun kugu helin meel cidluu kaa helay ragga soomaaliyeedna ma wada xumo kuwa xun hadday meel cidlo kaa helaan waa kuu dhammaatay si fiican ma fahantay si fiican haddii lagu garab istaaga ee ninkaa lasoo qabto oo runta laga sheegsiiyo oo dhibaatadu kuu geeyay adna aa sheegtid dib dambaa sheegi magacaagii aayahaagii meelaa taagan tahay ma imaanaye sax marka taa ha u baqanin in lagu caawin waayeen ha u baqanin sax marka diyaar ma u tahay ninkan inaad soo hor istaagtid oo aad tiraahdid dhibaatooyinkaas iyo dhibaatooyinkaas iyo dhibaatooyinkaas igu sameeyey dhibkaas iyo dhibkaas iyo dhibkaas iyo dhibkaas iyo dhibkaas waxaa ii geeyey waa ninkan waxaan wadankayga somaliland uga cararay waxaan baadiye u degay waxaan reerkayga uga cararay waxaa rafaadkan ii geeyey waa ninkan because okay ma soconaysa habar yar waa in la istaajiyaa raggan soomaaliyeed kulla wada xun yihiin ma dhihi karo ragga soomaaliyeed ragga soomaaliyeed bahalay noqdeen bahalla waxaan daawanayay ragga ma wada xumo wiil oo tiktoka ku jiro oo gabar intuu soo qaawiyey uu soo qaato uu leeyahay balaayo allah ragga sooma rag wanaagsan baa ku jiro marka kuwa xun ee gabdhaha intay wax ka duubaan oo hadhowna rikaata ku haysanaya war ilaahay ka baqa war iska daaya war dumarka waxaa ka dubaysiin daaya gacanta balaayo allaha inka geliya ka daaya dowladda somaliland dadka somalilandarka ah habar ha oynin way qaraacsantaa waa iska oynaysaa waxaan ka codsanayaa please and please gabadhan yar cadaalad bay u baahan tahay xag ilaahay ma rabta inaad ku caawisid inaad gabadhan garab istaagtid ma rabtaa nambarkayga waa +46 761 54 36 05 habar meeqaasana hadda reerkaaga aa kasoo maqanta adiga oo baadiye aad joogto oo reerkaa aad la joogtaa in badan baa hada kasoo qareeraa 5 sano oo noqonaysa 5 sano kasoo maqan tahay habar marka hooyada iyo aabaha waa nool yihiin aaba uu dhintay hooyo way noosha adeero ma leedahay adeerka waa kii igu darnaaba hee markii dhibka igu soo baxay wuxuu mikrofon qaata inanteeda way karaacatay dhaha ereyga igu daran sida warka ii galay buu noqday adeerkii ereyga maka filayn inuu igu odhanayo alla waalidiinta soomaaliyeed maxaa lagu sameeyaa alla waalidiinta soomaali wacyigelin bay u baahantahay adduunyada waa mushkilo waalan hooyada markana aawo hooyo beer wax dhashaba hooyadan idan isaaqiya ka tahay habaryaro hooyada isaaqiya ka tahay iyadana jibraaba kore ka sitaa habar qabiilada ma rabo ina magacaabo ku bari maya habar yar maya habar waad ku qasban tahay oo soomaali baa joogtaa soomaali baa joogta waa lagu qasban yahay qabiil inaan ku weydiiyo ma fahantay soomaaliya qabiil baa lagu wada fadhiyaa qabiil buu qof kursi walba ku fadhiyaa ma fahantay qof walba qofkiisa soo doorta no matter somaliland jubbaland soo muqdisho I don't care qabiil ba meesha wax laiskugu qabtaa qabiil baa ka jira cadaalad kama jirto walow hadda la kala roon yahay oo la kala fiican yahay oo maxaa lagu dhahaa ii sheeg meelna ay nabad ka jirta meelna ay nabad aysan ka jirin marka maxaa la dhahaa ii sheeg meesha nabadda ka jirsan ilaahay ha u ziyaadiyo meesha nabadda aan ka jirsan nabad allah ha siiyo
marka maxaa la dhahaa ii sheeg dalka soomaaliyana anigu meesha aan ka warramo oo aan taga oo aniguwaas 40 iyo hadhadhada jiro laygu rabo in laygu qaarijiyo waa muqdisho muqdishona anigu khalad igama galan shakhsiya ah khalad iga galay dadka muqdisho degana waa dad dhayman ah oo dahab ah afarta corruptionka meesha fadhida ayaa rabtay inay anigu iqaarajisa ilaahayna ma dhihin daahir calasowna muusan dhihin maalin walbana waa sheegaa meeshaasna qabiil baa ka jira soomaaliya oo dhan qabiil baa ka jira afarteeda gees ma fahanteen si fiican dadka soomaaliyeedna waxay ku tusiin waxaa lagu gaarsiinayaa limit in aad ku nacdid magaaladaas ama dadkaas meesha degan layma nacsiin kara muqdisho laymana nacsiin kara soomaaliya afarteeda meel afarteeda raas kamboyn ilaa raas caseer laymana nacsiin karo dadka wanaagsan ee daymanka ah ee muqdishaawiga ah afarta gubatay oo tuugada oo mooryaanta ahna kuwa shalay idinka inka darnay oo mooryaana baxay idinkana waa baxaysaan maalin walba kursigaas qof baa iskale maalin walba koox baa imaanaysa marka dadka heerkaa ha gaarsiinina inaa gabadhan yar adeerkeed uu dhaho garac bay dhashay waa gabar maxaad ka faa'iideen hadda odaygaasaa la hadlaa khayr allaha ku sii adeer macaan gabadhi waxaad tirahda garaac bay sidaa mikrafoon ee qaadata meesha lagu arka hala dila kan waa gabar waa hilib cad saaran mid kalaa helaya adiga waa bursatay mid kalaa helaya wuu rafaadinayaa wuu silcinayaa wuu dilayaa cadaab bay ku noolaanaysaa aakhiran adaa lagu haystaa ilaa adaa mas-uulkaa aabaheed u dhintay mas-uul ilaahay ka sokow adigaa ka ah aabihii wuu dhintay allah u naxariisto marka adiga markaa dhimatid kuwaaga saa haddaa loo gala ka waran how do you feel maxaa dareemi lahayd adeer macaan ilaahay ka baqa ilaahay ha laga baqa soomaali maxameday ilaahay ka baqo adduunyada waa gabagaba qofkaa shalay la hadlaysa saaka asoo soo kicin qofkaa hadda 2 daqiiqa ka horeysa lagu soo waxa lagu leeyahay qofka wuu go'ay dadkii baadiyaha jooga hadda internet baa leedihiin tiktokiin waxaa kasoo gala dad badan oo baadiya jooga dadka soomaaliyeed please and please ummadda u naxariista gabadha meel cidlay joogtaa dad dhan ma haysato qabiil ma haysato ina adeer ma haysato ehel ma haysata way idin sheegtay way idin sheegtay wallaahi baadi bay joogtaa igu tiraahday waxay igu tiraahday reeraha dhar u dhaqaa arina u raacaa kaba aan xirtay xitaa ma haystay tirahdana ariga markaan raacay waxay tiri reerkaas waxayna cunaana la cunaa banaankaasaan jiifanaa meel balanbala ah maxaa ilaa heerkaas gabadha gaarsiiye dad baa gaarsiiyey hadday heli lahayd qof u naxariista maxaa noo diiday naxariis soomaali haddaan nahnay maxaa inoo diiday wanaaga maxaa kuu diiday in aad qofka walaalkaaga dhiban aad tiraahda soo dhawaaw kii wanaagsanayna waa raaxa soo dhawaa good morning aliskining kii wanaagsanayna waa caynaynaa kii xumaatada haynana waa bombooninaynaa kii waalayna waa bursanaynaa habaryaro qalbiga allaha kuu qaboojiyo arrintaanayto waa arrin anigu been ma kuu sheegay maskaxdayda ka weyn culamaa udiinta soomaaliyeed ayay u taalaa iyo dadka somalilandarka ah gaba horta waa in lagu soo celiyaa habaryar waa in lagugu soo celiyaa somaliland ma fahante somaliland waa inaa cagaha dhulka soo dhigtid somaliland maalinta lagugu soo celiya ayaa xal la keeni karaa niyadaada khayr u sheeg qalbiga allaha kuu qaboojiyo reerka aad la joogtidna waad mahadsan yihiin khayr allaha siiyo maamada shalay si fiican bay igula hadashay gabadha meel cidla ah aan ka helay tirahda meel cidla ah
iyadoo socoto habra adigu baadiyahaasay ku aada adaaba see somaliland ugu soo tagtay oo aad u aadi kartaa baadiyaha ethiopia nafta igiisa habo wallahi mimkasaabo waa ku maqlaa naf baa ku geysay si fiican hadda wallahi aan kula hadlay qalbigayga xanuunka ka baxaya haddii soomaali dareen lahayn waxa ka cabsanayna isu duceeyaan bis waa laguu soo ducaynaa habre anna waa kuu soo ducaynaa qalbiga allaha kuu qaboojiyo qalbiga allaha kuu qaboojiyo ani waxaan isku dayayaa sida lagugu soo celinahay somaliland ninkaas qajaanka ahna cajaladahaada hayana aniga asaga iyo dowladda somaliland iyo dadka somaliland jooga ayay noo taalaa oo waxgaradka ah ee dumarka u naxariisto ma fahanteen dadka ma wada xumo adeerkaa hadduu xun yahay adeero kalaa leedaha ogaaw hooyada hadday xumaato hooyooyin kale soomaaliba gabdho dhalayoo kuu naxariisanaya qalbigan allaha kuu qaboojiyo waan ku salaamaya waan ku sii daynayaa waana ku soo wacayaa keeskaaga waa anigu wuu iga weyn yahay culimaa udiinta soomaaliyeed baan u daayay waxgaradka soomaaliyeed baan u daayay waa in lais horfariistaa waa in ninkii aad beenta u sheegtay aad u horfariisataa oo aad tidhaahdaa iyo cafi kii kalena maxkamad iyo dacwo lagu furo anigu intaasay tala ila tahay qalbigan allaha kuu qaboji hawryar macaan waana ku soo wacaya maamada aad la joogtidna jazaaka allah khayr ku dheh shalayna waan la hadlay ilaahay khayr ha siiyo adna ilaahay ha ku xifdiyo adi iyo beebiskaaga habaryar duceyso ilaahay ma aragta isku xir shaydaanka inta sana aad isku dayda inaad isdishidna ka tooba keenta alxamdulilah alshukurilah habaryar intaa daawo su-aal baan ku weydiina waana kaasii tagaa 5 jeer aa isdishay ma jirtaa mar aad hawada ka maqneed 10 daqiiqo ama 20 daqiiqo oo astirahdo waa dhimatay markii koomada kale ay ugu dambeysay marta baan soo noqday soo miirsaday markaa soo miirsatay maxaa istirahda wali waa noosha ma istirahday si fiican kooma ma nafti ma baxaysa ma isiri ya wali naftiba ma ka biximiya koomada koomada meeqa bariyaa ku jirtay hal beri habo markaa soo naarto xasan nafta ma bixaysa iska daa markaas baa ka quusatay ha ma dhinto waa ilaahay waa idin sheegay naftan maalintay go'da loogu talagalay sun siin laheedeena la dhihi lahaaya hana waa dilaynaa hana kanaa ku samaynayna waa lagu dilaa anima aaminsanin taada markay gasha unbaan aaminsanahay in la dhimanayo taada markay gasha unbaan aaminsanahay in aad qabrigaaga 2 mitir lagu geynayo hawaryar macaan qalbiga allaha kuu qaboojiyo waa ku salaamaya niyadana khayr u sheeg ninka nambarkiisa hadaa haysidna ii soo dir aniga aqaana meeshan ka maraya ninka Somaliland muxuu ka joogaa Boorama ware Boorama asna Boorama ku raaxaysana cunugu u dhalay adigana baadiya ku balaanbalaysiyaan wallahi billahi tallahi wallahi yaab waay ولو فيديو يركا هاي كوجها جبايا اوكي هو يدا حرير ملادي هنا ديجا والله هو إني أبغى رسول استاجا واحد لميته سبب كعب سنة وهي ما قاعد ما رسول شيء شرفت في الدنيا ده كله حتى لما كان لهنا حتى وكشوتي habri fiiri midda ah magac xumaan u soo jiiday ma dhaqan Soomaaliyeed mas waxa diiniyan ah anigu dhaqanka Soomaalida oo qalafsan ma aaminsan anigu diintayda islaamkan raacaya dhaqan Soomaaliyeed ma halkaas iga dhig midda aalada hooyaday magac xun baan u soo jiiday diinta islaamka uma malaynaya in ay
waxaas ay leedahay qofka magac xun baa loo soo jiiday waxaa anigu diinta islaamka kuma maqlin magac xumadana waa waxa annaga shaydaanka noo qurxiyey oo balaayo isku qufulnay oo dulmi cad waaye hooyada magac xun uma soo jiidin comment ma akhrin karo soore in hooyada magac xun maadan u soo jiidin waa dhaqan qallafsan ay soomaalida ay leedahay waay oo ha waa i ceebaysa miya ha aniga cunug ii keenta miya ha aniga kan igu samaysa miya aniga kan igu samaysa miya no 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 hooyada waa hooyada ku dhashay isku day in aad wacdid isku day hooyada adigay ku dhashay waa beer waxa dhalay hadda waxaa laga yaabaa meelay kaala soo xiriirta inay la-dahay ay ku baafinaysa ay habeen iyo maalin gabadhaydii cunugayga ay leedahay beer wax dhalay waaye ha xumaato ma ha fiicnaato okay hooyada markay dhibaatadan dhacday ninka lagugu meheriyey kadib islama hadla ninka aa kala tagteen dib dambe hooyada ulama hadlin wallahi yaab waayo habaryaro waad mahadsan tahay jazaaka allah khayr anaa kusoo wacay asalaamu calaykum بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي كومنت كينا ما أخرين كارو because أف صومالي أسوق قريسين وصومالي هذاك وقت بقى أباهنا أم بدد بقى وريسنا ما فهمتم أف صومالي فسيح سوقر أما هديسا إهنا كومنت كاجا فرض بدن الجملة هاي سوق قريسين هاي سوق قرين وإذن شيء أنا أف صومالي ما أخرين كارو وحكست وقدر الله abaayo waa mid ku qorneed hooya jiibaaneed hooya jilbaheeda qabso oo ku ooy abaayo qofsaa soomaaliga u akhrina rabtay marka dad baan wareysi ka qaadayaa maxaa la dhahay ii sheeg inaan soomaaliga saa u hingaadiya saa u akhrino no farax I can understand you I got you waa ku fahmay laakiin ninkaasa anigu raba in lay qabto ma fahanta dhaqankaas waalan baan raba inaan ka zuulo waaliyo dhan ba halkaasay taallaa wiil yaroo Canada laga soo celi baan aan iisuku eedadiis isoo wacaysa mise wacde mayase meesha lagu yaabaa la fadhiyaa meeshii Soomaali meeqa saac ay u tahay Soomaaliya meeqa saac ay u tahay maaman program ka qabana wax xirka dibadana waa inaan soo galaa ساعة لح ساعة Soomaaliya meeqa saac ay u tahay waa ii sheeg waa 5 saac 6 saac ay u tahay ha Afrika Waqooyi waxay dhahaan 12 ay u tahay 12 bay u tahay maaho iyo bar kowdii oo dhima 20 daqiiqo may u tahay hana I know I can understand thank you mahadsantihiin jarmakan jooga waa fiicanahay alxamdulilah alshukrillah the weather is very beautiful haddaan kaba gashanaya waan seexanaya hurda u ciil qaba been ma idiin sheegay wallahi imaadi waxaan kacay 6 in the morning maanta waa maalintii hurdada warkayga ma idin gale Soomaaliya 11:30 ma u tahay Soomaaliya 11:30 ma noqon karto no waa in ka diiday waa 10:30 waa 12:30 waa Soomaaliya abaayo maxaa adag ka dhigay inay dib u laabato adaaba fahmi sheeka ma fahanteen
Soomaaliya waxay u tahay 7 saac ay ku sii socotaa 1 o'clock bay ku sii socotaa 1 o'clock chap bay ku socotaa Soomaaliya maxaa sheegteen baa la yiri soo ma fiicnidiin dadka 11 taad Soomaaliya soo noqon kartaa no ma hal saac calo la isku dhaxeeya may naga tagana waa ana fiirinaya suga Soomaali Maxamed ay ko jaki dogo hadda inta yar aan la hadlay 38 fariina ii taala Allahu akbar marka waxay idin rabtiin Yurubta kale iyo Soomaaliya saacada u dhaxaysa miya aniga Yurubta hadda Jarmalka waxay u tahay saacad ma u dhaxaysa alla waa runta xalay saacada la bedelay dibba waa run maanta axad waa yes حال ما ساعد أنا بدري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها سمركي سمر على قد جميع والله وحصلنا وكتشيفة تلفونك يجنا أوتوماتيك كله مركز ساعات بقى ودحيس ما هو أنا إنجليز كمر كان شغله بس ساعة يدحيس مر والله وفهم ما يواد ما ساعد حلا بدري والله أنا وروهين وبالله أنا قاعد وحيت التن يا أنا قاعد تن بقيت حبيبتي نهاري نيروبي فردوسة شوكت حيت هذه هنا داداجين محل هم فاهمين الصومالي قص الله أنا قاعد أشون حق الله الصومالي ما آخر كرر الصومالي بنص قريسين الداي بالله عليك الصومالي فسيح نص قرا Somaliland waxay u tahay ayaan baa joogto thank you daylight yaa boqorad hadda waan hayla yaabina walaalayaal Soomaaliya waa naga horeysa waad mahadsantihiin jazakallahu khair wallahi saacada Ingiriiska waxay u tahay saacada Ingiriis telefonkayga yaa saacada Ingiriiska waxay ii sheegaysaa sax waa 10 waa 9:09 way in the morning yes way ugu furan tahay wallahi inaana wax fiirinin waa igu furan tahay aad baan u daalanahay hurda ahays of course 1 hour ha hurda ahays hurda oo ciil qaba hurda oo ku salaamay hurda ahays wallahi hurda oo ciil qaba thank you hani qalito ku salaamay xabiibti aad baan idin salaamaya waxaan rabaa inaan halkan uu fariin ugu reebo ragga Soomaaliyeed ilaa xalay ilaa hadda isoo wacay ugu dhahay hana gabadhii baan rabnaa gabdhahayga waa expensive nimankiina Soomaaliyeed iga aamuso daydi waa u jeeda xabiibti Amina chief bachireska aamus xabiibti chief ma iyala fiicnaan badnida waxa idin sheegaya wax farxad baan idin sheegaya alla farxad baan idin sheegaya oo jareerta way culculnayso raaxa hurdo ma jirtay isu war farxad baa soo jareerta isku dhagantay wallahi lama shal isku dhagantay la ilaaha illa allah mujadin isku dhagantay inna bahalka foonayaha aawiya bal waa raadina foonayna ma hay bismillaahir rahmaan waa isku dhagdhagtay injir baa igashay waa la soo hoydaa warani makiina Soomaaliya soo wacayna seex maxaa seexdaa ma seexan karnaa waagi noo barina daay telefoonka la xirtay war farxad baan idin hayaa yaa xasuusta gabadhii aan wareysi ka qaadayay gabadhii Nairobi joogtay oo aan wareysi ka qaaday oo ilmaheeda aan dhahayay marada aan ku jiranay kuma jirta hadaanan ilmaha baasboorada u soo celin waa inaan suurooda kees baan soo hagaajiyay waa inaan suurooda suganaagaha Soomaaliya u suurooda farxadda waxay tahay yaaw farxadda ku soo wada namaza islaamaha Soomaali iibaak alla ka qaaday ya seexa
محل سجد ساعة ورسحة كنا محل سجد على البناقة سمارة بلا لها كل واحد ما قايل ولا قوليها قايلة ذا كدا علمه وين كسوع عوض علمه سوى حتى الدهان دقيه على حرونه راح اسوي لهم كسوع لامنا إن لا أنا باكو هيسا هذه ما أقول إن لا أنا هيسا بل ظلمي قاس إذا كده جيستو قايلة جوج نصر قايلة أوكي هي توصى وهالليا ترتيبها وهالليا وفرح سنة هاي أنا يوجد شرطة مالدي شري أنا إيدا انتهي أنا يوجد شرطة حالس كقاعدة ما حد ريموسا أنت مروسا وتشك هذا نعكت لان دير هذه هبر قدرته وعيرته هذا أبا واكينو يا إيدي عروته هذا how do you feel أذر معانين كدد بلا أذر نيروبي أشوكتو عروتنا كما قاعدة كرتد عرورتاس agagaarkoodana ma imaan kartid hadda runta ku sheega caruurtaas agagaarkoodana ma imaan kartid ma fahant iyo wad sheekada bal caruurtaas ku soo soqojaan ilmihii waa la keenooya oo ilmihii alla Sweden jeclay yo älskar Sverige tack. Tack så mycket svenska ambassaden. Tack så hemskt mycket svenska ambassaden. Tack Sverige myndighet. Svenska myndigheter. Jag är så tacksam. Jag är så stolt över er. Jag äter svenska bröd. مجدين. وحكى لهم معون حتى. وشعيل بان سويدن وقبا. بالكن لقى مهل إنجليزك. إنجليزك لقى مهل ربطم أكتين روتيكا. والله لقى مهل إنجليزك. ما كان يقارن ده سومالي إنجليزك تعال ما كان بتقانين. lagama hela ingiriiska waa ka waay aan waa raadi waa waay lagama hela Swedish baa iska leh iyo European-ka kala lagu gadaa ma fahanteen warkayga miidan galay xal iska qaada jamaadna keeskeeda waa dhiindhiin way soo bixaysaa mardhow مجرخون سفر كنا وحلا أبايا ويلا ما يلا آمنة والله واي حبيبتي إن بولالي معاني مالو قضى إيشاق وان واي يرب مركا ما هاد مركا سويدن تجاي كسو عروسة لكن ليدلك أيا أنكسو إبسدي من أنا سانو إجا وحاسارن إن محلها محلها فرو سوال محل قدها فرو محلها سو قرو dadkina soo waxa saaran kan asoo wax saarnayna jiro gaadaya lidlka ma lagu gadaa I have to go and check it Sverige och Hanna vi är stolta över det tack vare att du är svensk وعد lidlka ma lagu iibay inaan raadiyo waay السوديش اسكالواتيل فكر سفنسك سنت أباي ما لو قضى لي دل كنا رادية واي إلى مركا إمادينا رادية واي إن شاء الله بإذن الله كريم آدبن إذن سلامية آدنا وإذن شعلها جزاك الله خير واد مهد سنتهين كنك برود وكنك برود ليلي بلد قط أساس السن لا أنا والله ده waxa kala ku weydiiyay abay aamina waan ka faa'iideysana caanaha garoorta Swedish-ka ma haya laakiin walaalo Ingiriiska hal waxa ku nacay fiilmiyalka malaha adil thank you tusan tak fiilmiyalka caanaha garoorta Scandinavian-ka Yurubta kale waa ka helaysaa Jarmanka waa ka helay intee kala tagay bilja hadda ka hor aan tagay Yurubta kale Switzerland waa tagay waa ka soo helay لكن نرويجيانك دانشك عانها إيه هيان إيه فنلنديسكنا واتجي عانا جرور مركلة ده إنجليزك هو 0 to be honest with you ما فهمتين وحاليا هاي مرة بعد مرة سدحات مرة أفراد همبلية أدواء يقول السلام إلما أذير يالو أدواء هدا تقاني تاجر هيسا هاي واتشعل هاي أدواء ما تقانا شخص مو تقانا أدواء please and please هلا يقول السلام وان جعلهاي وأدعيا إن وان سبورت قريا
فهمتين يوغو السلامة رحاج سليمان وحان لي يعني إذن كدقالك أفراد باسكو قادة له لكن لا ديرا يقول نقطين لا ديرا يقول نقطين مش هوشين وكسر بحدن وإذن سلامي بقولي تبين أفرتي القرآن كان يكون سلامي وحال كان مر والبا مهلا إلهي سبحانه قادر كأها مهلا بعض وحاسك الأمة الصومالية سبيشال الداهر عبد الله على سو أنكو سي walaalkay noola intay noola jirto xabad la iska qaadan maayo ee bowgay adna waa istaqaana ana waa ku aqaana hadalkaaga halow aka shaqeeya xafiis walbo Soomaaliya ka shaqeeya xafiis walbo Soomaali warkaaga ka shaqeeya and you know you do more than anything in this world dadka Soomaali waxa u hay Soomaali warma ha isbarin Soomaali baa lahaa dadkan waa idin salaamayaan daahir cala soon dadka oo ha ku daalina idin ilaahay ka dhamaada inta sayga tala waa iga tala ha ku daalina ninkan muxuu dhahay Cabdirasaaq yar Cabdirasaaq la reeyo qooya ah wuxuu dhahay waxaan arkaa baraha bulshada waxaan ku arkaa uu dhahay daahir cala soon leey wacil baa tahay kan baa tahay intaan fiiriyo daahir cala soon ha baqlaysa iska loo iska baashaala uu dhahay warba la isku ma hayo dhahay marka daahir cala soon ha ku daalina wadaalaysiin ha ku daalina daahir cala soon runta idin sheey waa daalaysiin le waxaan ka helay markuu gabadhii reer waqooyiga ahayd Jabuutiyaanka ahayd uu wacay uu dhahay telefoonkaaga kan ku jiro ay tiraahdo intee ku soo heshay iwat investigationka abay waa la bartay ana hadda ku fahansiinay waa la bartay investigationka waa idin salaamay adduunka meel ba ka wada joogtaan gul gabadh ma idin rajaynaya waa badaraynaya bahalkan isku daldalaya wax kala ma cuno aniga ma fahanteen naagihiina Soomaalidana bahalka isku roonaada Jarmanka jooga kan ma aragtay kan isku roonaada naagihiina Jarmanka jooga inaa walba Soomaali meel ba ay wada joogtaan kan isku roonaada ma idin sheegay salaamu calaykum